Another day, another hit. maalin kale mid kale oo ah howlgal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo ay qaadeen ciidamada Free Syrian Army magaalada ku taala koonfurta dalkaasi ee Darca. waa dagaal dhexe oo ku dhex maraya gudaha magaalada qofna ma oga inay wadooyinkii ay caruurtu ku ciyaari jireen uga wanaagsan tahay caruurta dagaalka ku jira Syria. dhammaan raggani waxay ku kareen Darca balse tani ciyaar maaha haddii ciidamada dawladdu ay shiishka ku beegaan way dhinteenba. شو ضربها؟ هذا ضرب على الخزان والقصر المهدوم من جهة القطوع نعيم. halkani waa magaaladii uu ka bilaabmay kacdoonkii lagaga soo horjeeday madaxweyne Bashar al-Assad. mid ka mid ah dagaalyahanadani oo ah nin aad u da'yar oo aan mas'uuliyad qaadi karin magaciisu waa Muawiya Siyaasnaan. كنت عايش مع مدرعة البلد مع أهلي أنا وأبوي وأخوتي كنت أدرس ومع أصحابي يعني نطلع ونفوت ودراسة وصلت على السابع ما فيش بعد السابع صارت. Muawiya waxa uu ahaa 14 jir markii uu faafiyay hal ku dhigyo ka dhan ah dawladda oo uu ku qoray gidaarka dugsigii uu dhiganayay oo ku yaala magaalada Darca. waxay ahayd bishii February 2011 weligiina muu malaysan in cawaaqibka intaa leeg uu ka dhalanayo. waxaa la og yahay in tiro ka badan nus milyan qof lagu dilay Suuriya tan iyo intii uu bilaabmay dagaalku. magaaladii Muawiya waxa burburiyay dagaalka wadooyinka ka dhacayay madaafiicda iyo bambooyinka waxaanu dagaalku reebay riiq aanay weligeed ka soo kabanayn. wixii loogu yeedhay gugii carabta ayaa ka bilaabmay magaalooyin badan oo bariga dhexe ku yaala Tunisia, Masar, Liibiya, Yemen. waxay ka dibadbaxayeen hogaamiyeyaal digtaytaro ah waxaanay dalbanayeen xorriyad dimuqraadiyadeed. balse Muawiya waxa bedelay noloshiisa wixii ciyaarta caruurnimadu u geysay. waxaanu ka aragnay warka telefishinada waxaanu aragnay wixii ka dhacayay Masar iyo Tunisia sidaa darteed waxaanu iskugu nimid iskuulka waxaanu ku buufinay hal ku dhigyo gidaarka waxaanu ku qornay gidaarka dugsiga waxa tahay ka xigay ee dhaafaya Dr. Assad maalmo kadibna Blaze-ka ayaa arkay wixii aanu ku qornay waxaanay soo ururiyeen dhammaan inamadii jaarka. miyuu aabbaha ogaa waxa aad gacanta kula jirtay? haa muxuu ku yidhi markaa? waxa uu weydiiyey maxaad qortay? hadda waan sameeyey. waxaan ku yidhi taas waa maxay? wuxuu yidhi taasi waa waxa sababay waxaan ii sheegay inaan isqariyo waxa uu ka walwalsanaa ammaankayga. miyuu ku cadhooday mise wuu naxsanaa? waxa uu ka walwalsanaa ammaankayga. wixii uu ka walwalsanaa aabihii Muawiya iyo 3 ka mid ah ardaydii madrasadda waxa qabtay bilayska iyo daraasiin kale oo laga shakisnaaba. waxay igu xidheen guriga ilaa 4 subaxnimo. galkaasi subaxii hore sariirta lagu qabtay waxa lagu soo jabiyay jeebad. qoyskuusuna wax fikrad ah kamay haysan meesha loo qaadayo balse waxay ogaadeen in sumcadda Suuriya ay tahay axmaqnimo.
macruuf cabuud waxa uu ahaa xisaabiye muddo 20 sano tan iyo intii uu bilaabmay kacdoonku in carruurtu ay kelmado ku xarxariiqeen gidaarada iskuulka iyo in talisku ugu yimaado si uu gacan bir ah iyaga ugu qabto muddo intee leeg ayay xidhnaayeen 45 maalmood maxay idinku sameeyeen wayna garaacayeen waxaan inagu dhaariyeen inaanan mar dambe waxaasoo kala samayn waxaan inoo sheegeen inayna dili doonaan oo ayna garaaci doonaan annaga waxay kor noo soo daldaleen sida digaagadaha loo soo daldalo oo kale waxay isku xidheen lugahayaga oo ay na soo laalaadiyeen oo ay dhulka u soo foorariyeen madaxa iyo gacmaha iyaga waxaanay nagu tigtigeeyeen waxaanay nagu xidhxidheen waayara adag waxaanay nagu tigtigeen waayara adag waayara dab ah ayay nagu qabteen dhabarkayaga waxay ii geeyeen baadka oo runtii aad u qoyanayd waxaanay igu soo fureen biyaha waxaanay nagu qabteen laydhka waxaanay nala dhacayeen xadhkaha laydhka dhammaan jidhka oo dhan dhabarka lugaha meel kasta waxay kor nooga soo laalaadiyeen gidaarka lugahayaguna dhulka may soo gaadhayn maalintii oo dhan marba marka ka sii dambaysa waannu qaylinaynay dowladayadu wax tilmaam ah nagamaysiin meesha ay carruurtu ku xidhan yihiin inay jeel ku tuurtay oo ay jirdilayso iyaga qof kastaaba wuxuu ogaa in iyaga la jirdilayo waayara dab ah ayay nagu qabteen halkay kaaga qabteen waxay ii geeyeen baadka oo runtii aad u qoyanayd waxaanay igu soo fureen biyaha waxaanay nagu qabteen laydhka waxaanay nala dhacayeen xadhkaha laydhka dhammaan jidhka oo dhan dhabarka lugaha meel kasta waxay kor nooga soo laalaadiyeen gidaarka lugahayaguna dhulka may soo gaadhayn maalintii oo dhan marba marka ka sii dambaysa waannu qaylinaynay بس رؤوس اصابعك يعني ملامسات الارض وانت موقف ظلك يومين لحتى تعترف markii uu aabihii isku dayay inuu raadiyo inankiisa waxay ku yidhaahdeen iska ilow oo tag guriga oo wax samee haddii aanad wax samayn karin noo soo dir dumarkaaga annagaa wax badan kuu samayn doona dadka gobolka deerka tani waxay ahayd wax aan la aqbali karin gebi ahaanba natiijadiina waxay noqotay kacdoonkan aad arkayso cabsidii inamadooda ka haysatay inay bilo jeel ku jiraan kumanaan ayaa jidadka qaaday iyaga oo dalbanaya in loo soo celiyo inamada waxaan ka mid ahaa kuwii ugu horeeyay ee ku biiray dibadbaxa waxaanu guud ahaan ahaa mid si nabadgelyo ah u socday markii koowaad gebi ahaanba nabadgelyo ah waxaanu ku qaylinaynay annaga iyo ciidamadu mid ayaanu nahay balse taasi waxa ay isku beddeshay mid beenowda ilaa 3:00 galabnimo bileysku waxay bilaabeen inay cabsi geliyaan dibadbaxayaasha oo isku bedelo rabshado waxay soo kaxaysteen guutooyin ku fura sunta dadka ka ilmaysiisa iyo dhuumaha biyaha tuura dibadbaxayaasha dib ayaa loo riixay balse meesha lagama saarin kadibna si dhaqso ah ciidamada gaarka ah ayaa diyaaradaha qumaatiga u kaca kaga soo daatay oo ku amray dibadbaxayaasha waxaanay gaadhsiiyeen khasaare markii ay gaadhay 4:00 galabnimo oo jimco ah waxay rasaas ooda kaga qaadeen dibadbaxayaasha xaqiiqdii guriga ayaan joognay maxaa yeelay dibadbaxu wuxuu bilaabmay salaadii jimco kadib waxaanu maqalnay dhawaaqa hubka xooggan dadku way dhaawacmayeen qaar baa shahiiday 2 qof waa la dilay maalintii ugu horreysay mid ka mid ah dadka la dilay wuxuu ahaa jaarka noogu dhowaa waxaan dhiganayay jaamacadda kacdoonka ka hor waxaan baranayay injineerinka dabcan way saamaysay waxbarashadaydii xaqiiqdiina maan sii danaynba waxbarashadaydii sababtuma waxay ahayd waxa ku dhacayay inamada haa sababtu waxay ahayd waxaa ku dhacayay carruurta iyo sida axmaqnimada ah ee ciidamadu ula hadlayeen
waalidkuna waxay isku dayayeen inay difaacaan carruurtooda. maalintii labaad dareenka iyo jawigu u kacsanaa mar la aasayay 2 nin oo dibadbaxa ku geeriyooday, ciidamada ammaankuna rasaas ayay ku fureen mar labaad. way dhaawaceen tiro badan oo dadka baroordiiqa ka qaybgelayay ka mid ahaa, waxaanay laayeen carruur. qof kasta oo rasaasta ku dhaawacmay xabsiga ayaa la geynayay halkii laga geyn lahaa cusbitaalka. sidaa daraaddeed masaajidkii al-cumar oo ah ka ugu weyn magaalada ayaa maalintii koowaadba la isku fidiyey, balse saacadihii hore ee maalintaas saddexaad ciidamada ammaanku waxay beegsadeen masaajidka 7 qofna toogasho ayaa lagu dilay oo uu ka mid yahay digtoor. dilku dibadbaxayaasha ayuunbuu sii kordhinayay, halka kumanaan ay ka qaxayeen magaalada. xamaasadoodu may lahayn joogsi ilaa inta laga soo daynayo carruurta jeelka ku jirta. markii aan dibadda u soo baxay waxaan la yaabay dadka dibadbaxaya. waxa meesha sunsumayay rasaasta iyo rabshadaha. waa waxaannu doonaynay, waannu ku biirnay, waxaananu u jeednay waxa dhacayay, waannu ku faraxsanayn. waxaannu la dhacsanayn in dhammaan waxaan oo dhani ay annagana taageersan yihiin, in dhammaan dadkan oo dhammi ay dibadda iyo waddooyinka u soo baxaan annaga dartayo, balse maannaan ogayn in xooggaana loo adeegsanayo. manaan cadhaysan ayaa isku soo dhex tuuray. telefoonnada gacanta oo lagu duubayay waxa inta kale ee dalku uu arkay waxa dhacaya. ma filayn in waxaanay dhacayeen. waxaannu ahayn kuwo si nabadgelyo ah u dibadbaxayay, balse ciidamadu waxay noola yimaadeen waxaan oo hub ah, waxaanay u isticmaalayeen annaga. dibadbuxu waxa uu ka bilaabmay magaalada Darca oo ku taalla koonfurta, waxaanuu ku fiday Latakia iyo Dimashq, Homs, Baniyaas, Xama, waqooyiga Aleebo, bariga Al-Raqa. muddo badanna ma sii jirin in inamadii dibadbaxay la xidho, waxaana uu noqday kacdoon. dookh kale ma aanaan lahayn in aanu la dagaalamno guuto mooyaane, dab aanu dab ka hor keenno mooyaane. sidaa daraaddeed waxaannu aasaasnay maleeshiyo yar. 2 unug ee ugu horreeyey waxay ka koobnaayeen 15 nin midkiiba. macruuf markii koowaad waxaa qortay walaalkii. qasku wuxuu bilaabmay markii carruurta la xidhay. dadku waxay dibadda u soo baxeen iyagoon waxna u qorshaysnayn, waxna u diyaarsanayn. dagaalkii ugu horreeyey ee taliska iyo dibadbaxayaashu waxa uu ka dhacay magaaladan. magaaladii walaalkii Naciima oo ku taallay bariga magaalada Darca waxay sumcad ku heshay iska difaacidda, waxaanay wajaheen ciidamadii dawladda. waxa uu dhacay galabnimadii 18 Oktoobar 2011. ciidamadu waxay duqeeyeen Naciima ilaa magaalada Busra ayay kaga imanaysay rasaasta hubka culusi. toogashadu waxay si teelteel ah ugu dhacaysay guryaha. waxaannu go'aansanay inaannu ka hortagno oo aannu joojinno.
halka ciidamada Suuriya ragga iyagu way joogeen meelo macruufkii xisaabiyaha ahaana waxa uu noqday dagaalyahan si la mid ah dhammaan ragga waxa uu dhammaysan jiray carruurnimadiisii maalmaha dabaaldegyada maalmaha qaran waxa uu ku tababarnaa duuliyo dagaal wixii intaa ka dambeeyay qof kasta waxa uu lahaa militarigu waa caruusadaha qaranka waxa ku biiray ciidamada cirka sanadkii 1987 balse waxa uu hadda isticmaalay khibradii military waxaanu u dagaalamayaa jabhadda Free Syrian Army oo uu ku wajahaya dawladdiisa marka ay timaado goobaha dagaalka aad bay u adkeyd in aanu waajahno dibadbaxa waxa si xoog ah noogu yaraa tirada dadka iyo qoryaha